depressionka badiyaa waxa keena waxa ka mid a melihi depressionka uu wuxuu yahay depressionka siyaabo badan buu ku kala iman karaa meelo kala duwan ka iman karaa laakiin kan waxaan ka wadaa waxa ka mid a uu depressionka ka yimaado waxa weeyaan waa fadhiga qofka bini'aadanka fadhi looguma talagelin waa inuu socdo waad nasan kartaa waad seexan kartaa waxa habeenkii loo sameeyay inaad seexato ood nasato aroortiina waxa loo sameeyay in la shaqo tago wax la qabsado quraankii ku qoran tahay marka taas waa qasab laakiin ibnaadinka waxa loogu talagalay inuu wax qabsado inuu evolution ku jiro waad aragtay markaad soo dhalatay xoolkii aad ku jiraysay maanta maad ku jirtaa waa maya waad ka gudubtay sanad bada abaa ku koraya horaad u socotaa waad dheeraanaysaa waad cayilaysaa waad aqligiina waa saasoo kale aqligii tabtii markaad dheerayd ahayd mateedii marka wax badan baad ogtahay qofku evolution iyo croissance uu ku jiraa waa inaad hore ugu socoto marka fadhiga badan waa cadowga qofka bini'aadanka fadhiga badan wuxuu keenaa fikirka badan wuxuu keenaa energy badan inuu goosto sidaasuu usoo goosanaya energy badan inta yaraad fikiraysa xitaa adoo ka fikiraya waxaad jeceshahay haddana energy ayaa kaa baxaya qofku markuu fikirayo wuu gaajoodaa markuu fikirayo stress baa ku yar furma markuu fikirayo wuxuu doonaa inuu yara nasto daalka waad dareemaysaa sida camal gaadhigu shidaalka u goosanayo in marka aad fikirayso wax ku goosanayaan adigana that's why qofku markuu shaqaynayo oo ofiskiisa fadhiyo biyo isku soo yar ardhigaa sabiib yar buu isa soo agdhigayaa loos yar buu isa soo agdhigayaa inta uu shaqaynayo wax yar buu ka banaya cabayaa si uu enerjigan laga goosanayo uu kor ugu soo kaco qofku wuu yara nasanayaa 10 mirir 15 mirir si enerjigii uu jirku goostay uu u soo noqdo marka cadowga weyn ee bini'aadanku waxa weeyaan waa fadhiga badan waa cadowgaaga marka waa in aad socon karto dhaqdhaqaaqi karto maxaad ku dhaqdhaqaaqaysaa marka waxaad ku dhaqdhaqaaqi kartaa waxyaalo naftaada wax u soo kordhinaya sida isboortiga oo joogtayso kuma lihi jirka adkee kuma lihi isdhuub oo baruurta iskarid kuma lihi yacni waad ka dhigan kartaa target waxyaalahaasi buut aad gaadho waad ka dhigan kartaa laakiin waxaan kuu tilmaamayaa in isboortigo aad lugaynaysa dhaqdhaqaaqayso jirku u baahan yahay jirka u baahan inaad movement ku jirtid inta aad socoteed dhaqaaqayso hadaad matalan go'aansato maalintaada inaad 30 mirir soo lugayso ilaa 40 mirir lugaysta aad lugaynayso wuxuu lugaystaasi u tarayaa jirka inay meel walba shaqayso maskaxdaadiiba markiiba shaqaynaysa oo ka shaqaynaysa waxaan ku dhex jira inuu kuu kala kalaaseeyo inuu ku tuso maxaa muhiima inuu ku tuso maxaan muhiim ahayn inuu kula filtreeyo inuu kula fikiro waa maskaxdii jirkiina muxuu sameynayaa markiiba dhiigiiba ayaa dhaqaaqaya dhiigiiba kululaanaya jirka ku jiray markaasuu shaqaynaya uu pompeynaya wuxuu geenayaa dusha hoosta meel kastoo loo baahnaa calooshii baa iyadana shaqaynaysa intaa uu qofku lugaynayo energy baa ka baxaya wixii ku jiray buu kala filtreynaya marka waad u baahan tahay inaad dhaqdhaqaaqdo fadhigu waa cadowga ibni'aadamka waa inaad dhaqdhaqaaqi karto maxaa kaloo lagu dhaqdhaqaaqayaa camal baa lagu dhaqdhaqaaqayaa haddii aanad camal hayn waa inaad samaysan karto maxaad samaysanaysaa markaa deeganba waxaad la iman in aad fikradahaagii bilowdo inaad dhisto amba waxaad la iman in aad waxaad gacanta ku haysi aad u hesho strategy u hesho qaabab aad waxaan ku soo saarto uga mari dharin karto marka qofka bini'aadanka cadowgiisu waxa weeyaan waa fadhiga ka kac soo lugee fadhiga ka kac wax qabso fadhiga ka kac wax soo baro fadhiga ka kac qaraabadaada soo ziyaaro soo salaam fadhiga ka kac masaakiinta soo caawi fadhiga ka kac wuxuun qabo maalin walba waa inaad haysatid waxaad qabatid maalin kaste waa inaad haysid waxaad qabatid markaa socodkan iyo dhaqaaqan iyo waxqabashadani muhiim baa inaad tahay baa ku dareemaysaa qof muhiima inaad tahay qof waxtar leh inaad tahay maxaa proud lagu noqdaa qofka waa inuu wax qabto wixiina uu midho ka dhaliyo midhahaasi maxay noqon karaan qof baad ka farxisay qosolkiisoo keliya farxaddiisoo keliya salaantiisoo keliya intaasaa midho ah intaasaad ku noqonaysaa proud intaasaad kalsooni ku helaysaa
qof baad maanta soo caawisay wuu kuu mahad celiyay isagoo faraxsan baad ka soo hoyatay proud baad ku dareemaysaa maanta waxaad fahmi weyday waad meel tagtay aad wax ka soo barato waad soo fahantay proud baad ku dareemaysaa marka fadhigu waa cadowga ibni aadamka waa cadowgaaga fadhiga badan ma fiicna waa lagu xanuunsadaa markaa dhaqdhaqaaq wax qabso naftaada wax u qabso communityga wax u qabo aakhiro wax u qabso dhaqdhaqaaq mar walba mar kasta dhaqdhaqaaq marka qofka biniaadamka muxuu u baahaya inuu sameeyo wuxuu u baahaya inuu sameeyo horta inaad yeelato hami sare taasi waa muhiim hami sare qofku inuu yeesho maaha mid kaa waalwaalayo markaaba aad leedahay sidaan waxaan kusoo helo maya mid realistia mid aad is leedahay maanta waxaa waad awoodaa waad karaysaa inaad gaadho kartideedii waad haysaa caqligeygii waad haysaa waxa kaa dhimana dee qofna kuma soo dhalano waad baran doontaa marka adigu hoos ahaantaada isbaadh isdoondoon isdhegayso maxaad really rabtaa maxaad doonaysaa qof kasta wuxuu doonaya wuu jiraa haddaanad garanayna dee intaad socsocoteed baxbaxayso soo lugeynayso wax soo daawanayso wax soo dhegaysanayso fikradaha kuugu soo dhecdhici waxaad xiiseynayso oo kugu beermi doonaa moralka ha iska xumayn fikirka badan waa lagu xanuunsadaa fadhiga badan caajis baa laga qaada xanuuno nafsiya oo aayar kuu soo galaya ayaad ka qaadi kartaa qofka bini-aadanka waxa uu fiican inuu maalin kasta socdo amba naftaada usoo lugee amba ubadkaaga u shaqo tag amba naftaada wax usoo baro amba aakhiro wax usoo qabso wax fiicanuun u soco xalay waad nasatay waad seexatay saaka markaad soo kacday camalku hadduu kugu yaryahay wax fiican balhangaray oo samee socoon marka qofku waa inuu yeesho hami sare oo fiican oo qurux badan uu leeyahay buudkayga waa halkaa waa inaan halkaa gaadho matalan example baan ku siinayaa waxaad rabtaa inaad furato shirkad kabaha soo saarta kabaan soo saarayaa baad leedahay laakiin kabihii wadankii shirkadii markiiba kama furi karto laga yaabaa caqabadaa iska jira laga yaabaa ma fududo sida loo sameynayo maxaad ku bilaabaysaa dee kabaha waad soo iibsan oo dib baad u iibin kabaha waad soo iibsan dib baad u iibin saa kolba dib u iibinayso macaashkaad ka hesho step by step in yar baad ka bilaabay hadhow halkaa inaad wadankaaga ku samayso maxaad samayn kartaa qolfaheegiiyo wixii intaad la timaado iyaad halkan isku gegeyn amba warshadiibaaba de kuu suurtooba inaad wadanka keentood halkan ku samaysa kabaha step by step qofku hami sare ha yeesho hamigaagu for example hadduu yahay inaad furato shirkad kabaha ka samayso wadankaaga dhexdiisa taargetka xaggaabaad saaraysaa marka lambar 2 aad u baahantahay waxa weeyaan in aad maanta ku dhex noolaato maanta alxamdulilah waa soo toostay alxamdulilah waa caafimaad qabtaa alxamdulilah reerkaaga way kuu ladan yihiin halka marka alxamdulilah baad ku jirtaa soo maanta ku noolaashahayga maanta inaad ku noolaato muxuu ka bilaabmayaa dee salaadii horta inaad kalimatu laa ilaaha illa maxamed rasuulullah inaad shahaadato maalin kasta qofku waa inuu jadiidsado shahaadadiisa inaad maalin kaste ashhadu an laa ilaaha illa allah wa ashhadu anna maxamed rasuulullah shahaadadaada jadiidso because you don't know waxaad shalay ku hadashay you don't know waxaad shalay samaysay laga yaabo khaladaado aanad ogeynba inay kusoo hoosgaleen so maalin walba markaad soo toostaa shahaado waxa ku xiga salaadihii inaad 5 waqti ilaaliso maanta waxa ku xigay inaad waxyaalahaad mas-uulka aad ka tahay aad hagaajiso waxa ku xigay inaad dreamkaaga iyo targetka aad doonaysa inaad gaadho inaad wax u qabato maanta intay doonaysa ha gaadho hadday tahay in aad fahanto sida wax loo xisaabiyo inaad barato koorsadeedii u gal buugagiisii u akhriso dadka heer ka gaadhay soo dhegayso lecture hadduu jiro meelo laga bixinayo waxa weeyaan maanta ku dhex noolow si aad hamiga sareed yeelatay aad u gaadho beri toolana hadduu laadhaa marka aad soo toosto ayadana dharaarteeda maalinteeda ku dhex noolow si aad u dhisto oo haddii uu jiro waxaad shalay samaynayso dhammayn kari weyday inaad maanta aad soo toostay aad dhammaystirto haddii kalood shalay arrintii aad qabanaysay dhammaysana maantana alxamdulilah waxa weeyaan waa page cusub haddana ayaduna dharaarteedi weeyaan maalinteedi weeyaan ayaduna maanta inaad u qabato wixii aad doonaysay inaad ku gaadho hamiga sareed lahayd marka sirtu waa maxay sirtu qofku waa inuu hami sare yeesho oo qurux badan iyo in uu maalin kasta maalinteeda uu ku dhex jiro ku dhex noolaado waa intaas inta haddaad ka dhex baxdo maalintaada inaad ku dhex noolaataad ka dhex baxdo oo fikirna ku jirto
waad xanuunsan doontaa wayna adagtahay inaad wax qabsatid marka naftaada aamin waxaad ka hashkadayso ka cabsooto acuudu billahi min ashaytaan rajiim dhe kulli waa wax yaroo kaa muuqanoo rabta inaad fahanto u fadhiiso isweydii maxaa siya waxaad fahmi weydo baro waxaad garan weydo baro waxa culays kugu haya ilaahay u daa wixii aan kuu wanaagsanayn amba aan waxba kuu tarayna ka hadh waan ogahay ma sahlana in badan waa la khaldami karaa in badan waa la kufi karaa in badan adigoo isla waxaan way hagaagsan tahay uu fiicnaanayaaba wax kala soo bixi karaa haddana alxamdulillah calaa kulli xaal waxaynu ku jirnaa barashada nolosha weeyaan qofna markaynu soo dhalano intuu buug noo dhiibay muu oran halkanaad noloshaada ka bilaabaysan halkanaad ku dhammaanaysaa maanta arrintaada usanay or noqonaysa cidna lama oran waynanu soo toosno si aynu ula noolaano waxa laynoogu talagalay marka hadduu negative aad dareensan tahayna positivekiisii baa ku sugaya haddaad positive dareensan tahayna negativekiisa uu soo bixi karaa hadda wax negativekiisa uu soo baxo positivekiisa markaa aad ku bedelaysaa aad ugu dadaalaysaa in arrimuhu noqdaan inaad dadaasho weeyaan mar walba marka waa inaad socoto waa inaad dadaasho waad kuftay kac waad daalan tahay naso waad soo jeeday in badan seexo in badan baad huruday waa inaad kacdo waa inaad hore u socoto marka ibni aadanka cadowgiisu waa fadhiga badan fikrado badan buu keenahaa fikradaha badan qofku hadduuna action ku xigsiinayn una u dadaalayna uu jahwareera hadhow fikradaha xanuun bay isku bedelaan marka dadaal soco dadaal insha allah ma fududa laakiin haddaa niyad u hayso ilaahayna talada saarato way sahlanaanaysaa marka aad baan kuu salaamayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu